qaar ka mid ah dhalinta magaalada Garissa oo waday olole dhiig lagu aruurinayay ayaa shir jaraa'id ah ku qabtay isbitaalka weyn ee magaalada Garissa kuwaas oo si adag u daleeciyay maamulka isbitaalka. Dhalintani oo gaarayeen ilaa iyo 150 ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in fursad noocan oo kala ah baaqato. يعني shacabka waas qabsan marka hata refreshment ruux marka dhiiga laga qaado wax baa la siiyaa caabitaan la siiyaa wixii oo dhan anaga soo diyaarinay marka insha Allah dadka maamulka istaalka oo hadda aan isla shaqeyno the chief officer the CEC and all the civil staff oo dhan inaan isla shaqeyno arintaas oo maadne wixii hadda markii dadka dhiiga laga bixiyo refreshmentka anaga jeebkayni ahaan as a youth waan soo aruurinay wax walba waan diyaarinay after this drive ta markaan dhameynana istaalka sidaan ugu gargaari lahayn aan daawo keen lahayn leena arin culus ay u dhacdaan islaantaydo dhalaysa la suufka soo gad waan ka naxay wallahi arin laga naxo way suufka 300 soo gad markii lahana dukaanka meesha ku jira leey ka soo gado hadda yaani dad xumaati ruux kama hadlayno laakiin istaalka sida baahida ka jirta in badan laga hadlay laakiin baahida ka jirta waa baahi culus dhalinyarada waan tashan inaan baahida aan dhameeyna aan dawoolno laakiin saakidan marka ay maadana meeli way xiran yihiin marka all those concerned Provincial General Hospital all those county government officials we are not condemning you we are good guys but let's come together unite together and arintan hore aan wadno dhulkan ana kaale ha biri anakum baale istaalka ana kaale baay ka soo baxana koomay waxaan dadka lagu daaweynaa waa walaalka adeerka eedada abtiga Soomaali kulli way ila meel fog loo maado dad badan ku xisaabtama laakiin maanta waa yaani nasiib darro anako 150 imaan inaan dhiiga bixin marka insha Allah balance la shaqeyno waxaan u imaanay inaan donate gareyno dhiig ama sida loo yaqaan inaan dhiig u shubno dadka masaakiinta ee isbitaalka ku jira ee outpatient iyo inpatient kabale ee xanuunsan inpatient iyo outpatient waxa lagu yiraahaa af Ingiriiska maartay bukaan socod iyo bukaanka jiifo marka hadii Ilaahay waxaan ugu talagalnay inaan deeqdaas gaarsiino dadka masaakiinta ah dhalinyaro waxaan isku soo aruurin ilaa 150 ah laakiin waxaan weynay nasiib darro isbitaalka weyn ayaa wuxuu noqday store nin leey oo markuu rabo la xirayo markii la rabo la furayo shaqaale ma joogo dhakhtar ma laha wax dhiig dadka ka qaada ma laha dhiig wax naga cabira naga test gareeyo oo dhiig meel dhiga waan weyn waana qasaare aad u weyn in shacabkan Garissa ku dhaqan ee haysto maalin walba inay markay wax dooranayaan ay aad uga fiirsadaan annaga waxaan leenahay dadka la soo doorto ma daleeceynayna laakiin maamulka xun ee meesha yaala waan daleeceynayna waxaan leenahay maamulkan wuu qarimay wuuna fashilmay waxaan hadda joognaa isbitaalka weyn ee General Hospitalka ama loo yaqaan Referral Hospital Level 5 Hospital dhanka kale Cabdinaasir oo hormuud ka ahaa dhalintani ayaa baaq u diray maamulka isbitaalka weyn ee magaalada Garissa. I would like to formally and humbly appeal to the county leadership, Bona Roble, Bona Hassan Ashur. We are going to carry out another campaign in fortnight time by the other weekend, inshallah. We will want to do another drive. Kindly avail the premise for us. Get us the nurses to bleed, the people we are going to bring. We are going to bring the refreshments for these people. We are here to support and not to condemn anybody. Si kastaba ha ahaatee isku day aan sameynay inaan la hadalno maamulka isbitaalka weyn ee Garissa ayaa inoo suuragali waayay. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Garissa.